قوم فشل مي وكرت حمو يهجى من حمو إلهي كو امتحاني أيام الشارع كدك توحص وددكم مركا إسلا دقاقان با اسكو ضيا إنay mijaxaabiyaan sidaa darteed haddii qof maskaxda ka xanuunsado oo dadku qofku maskaxda ka jiran yahay waxa la yiraahdaa indhihiisu waxay arkaan waxa maskaxdiisu u sheegto laakiin indhihiisu ma arkayaan waxa saxda ah ee dadku arkayaan tusaale haddii aan aniga xanuunsanahay oo maskaxda waxoogaa isbuuq ka jiro baabuurkani wuxuu u noqonayaa bahal mararka qaarkood maskaxda waxaa ku jira aniga baabuurkan inuu bahal yahay indhahaygu marka waxay moodayaan baabuurkan inuu bahal yahay mararka qaarkood siyaasiga xanuunsan wuxuu daacaa aaraa iyo fikrado aan waxa la arka ee muuqda ee saxda aan ahayn oo waxa maskaxdiisa ku jira uu jeclaan lahaa inuu arka ah muxuu jecel yahay waa la burburay waa la kala tegay waa la iskhilaafay yaac baa jira waa la isku kala yaacay waxaasa maskaxdiisa aad ugu jirto jecel yahay wixii buu afka ka sheegi marka maskax xanuunsan waxa ka soo baxda afkaar raabuqday iyo siyaasad cantataba dan qaran ma qiimeyn karo qof ay ka soo burqanayso siyaasad cantataba sideedaba waxa qiimeyn kara qof waaqici ah waxalila si sax ah u hadla kadibna waxay lagu qaldan yahay laga dhaliilshanayna tilmaama waxa lagu saxsan yahayna saxa kaas ayaa la qaadan kara laakiin ahal uma aha qof xanuunsan nama qiimeyn karo anaga intaas kadib waxaan ku jirnaa dawlad dhis Puntland iyo shacabka Puntland oo taariikhda leh maanta meesha maamulka iyo dawladda Puntland ay ka joogaan dawlad dhiska Soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnimo ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagayeen waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dawlad dhisida socota ee Soomaaliya taariikhdii lagu yaqaanay maamulka Puntland iyo dawladda Puntland waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay waxaan rabnaa siday hormuud u ahaan jireen inay hormuud u ahaadaan aan rabnaa waa socdaa dawlad dhiskii ninkii si xun u fekero waxaan rabnaa caasimadda Garowe inay noqoto caasimad waa caasimadda hadda ugu amniga badan caasimadaha Soomaaliya la oran karaa waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan waxaan rabnaa in loo ogolaado hay'adaha dawladda waxaan rabnaa in seminaarada loo ogolaado waxaan rabnaa in mashaariicda loo ogolaado waxaan rabnaa in la ogolaado dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iideysato nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iideysato dhinaca koritaanka dhaqaalaha iyo inay noqoto multaqaha iyo meesha ay isugu tagaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed baan rabnaa laakiin ma rabno in la yiraahdo dawladdu ma soo gali karto mar uma qalanto maxaa jira hogaaminimo iyo hormuudnimo sidaas ma aha dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin waxay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawl galino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntlandna micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqadan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yiraahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyay Puntland lama qaadan kara taas